harama maanta inaan dul istaago siyaasadda Soomaaliya sida ay u shaqeyso iyo sida adduunku ula macaamilo daawade ma ogtahay wadankanaga in lagu xukumo xeer la yiraahdo chapter 7 oo ummadda Soomaaliyeed aan ka iman inta aan siyaasadda fahansaneyn waxay aaminsan tahay dalkanagu inuu madaxweyne xora iyo ra'iisul wasaare xora golo wasiiro xora iyo baarlamaan xora aynu leenahay inta aan fahansaneyn xeerka chapter 7 la yiraahdo 2007 Soomaaliya in lagu maamulo loo ansixiyay ayaa raba maanta inaan ka dabageeyo 2007 xilligii dawladda Cabdullaahi Yuusuf Ilaahay ha u naxariistay ayaa Soomaaliya adduunku go'aan wuxuu ka gaaray xeer chapter 7 la yiraahdo oo wadamada dagaalka ka soo laabanaya ee soo kabanaya dhismayo lagu maamulo in wadankanaga lagu maamulo maalinta wixii ka dambeeyay magaalada Muqdisho waxa laga dhex furay magaalo kale oo xalana ku dhex taala waxa xalana ku dhex yaala safaaradaha adduunka sida safaaradda Mareykanka safaaradda Ingiriiska iyo cid kasta oo qaramada madow ka socota wax siyaasad kasta oo Soomaaliya leedahana halka ayaa lagu karkariyaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed inta iska soo istaago xeer ama go'aan kaligiis ma gaari karo ilaa uu xarada xalana kula laabto siyaasadiisa iyo masiirkiisa iyo tilaabo kasta oo dawladda markaa jirta oo ay qaadayso xeerka chapter 7 ayaa lagu qaadaya waxaana go'aan ka gaaraya quburo wadanka joogta oo wixii la rabo wadanka in laga fuliyo haday mashaariic tahay haday siyaasad tahay ay madaxda wadanku ay kuwa u geyso madaxda wadanku waxa ay rabtaa inay qabato way soo qortaa kadibna waxay u gudbiyaan kuwan bay u gudbiyaan kuwaanuna marka waa diidaan ama waa yeelaan kuwaanu hadii ay diidaan waxaas wax socdo maahan kuwaanu haday yeelaan waxaas wax socdo waaye dadka halka jooga ee adduunka Soomaaliya u soo xul saaray waxay u dhaqmaan siday wadankoodii joogaan oo kale abnigooda ayaga sugta qamrigooda ay halka ku cabaan doofaarkooda ay ku qashaan sida ay rabaan ayay gabdhaha ula tuntaan gabdha Soomaaliyeed oo aad u tiro badan oo halka shaqo u doontay ayaa halka ugu ilmo dhalay siday rabaan baha ku dhalaan dad tiro badan oo Soomaaliyeed waxay goor dhaxdaas ka xanaaqeen waraaq shaqo doona oo laga soo saaray halka shuruudihii ku qornay ee qofka Soomaaliga muwaadilka ee la doonayay inuu xarada ka dhex shaqeeyo laga doonayay shuruudihii cajiibka ahay waxa kamid ahay qofku inuu kow luqadda Itoobiya ku hadlayo qofku laba inuu luqadda Ingiriiska yaqaan qofku saddex inuu yaqaan luqadda Carabiga yaqaan qofku saddex inuu shahaado haysto qofku saddex waraaq dambilaan inuu haysto inta kale waa iska caadi laakiin dadka Soomaaliyeed waxay ka boodeen inuu qofku ku hadlayo luqada kale ma ahane qof luqadda Soomaaliga ku hadlaya inaan halka looga baahnayn waxay mamnuuceen qof luqadda Soomaaliga ma ahane aan luqad kale aqoon inuu halka u shaqo doona karin hadda waa muwaadilkii wadanka u dhashay dadka Soomaaliyeed way ka xanaaqeen arrinka social media aad uga hadlay hadii aan u soo laabto chapter 7 dawladdu iyadu wixii maskaxdeeda ku soo dhacay ma sameey karto waxa ay rabto dawladdaas inay sameeydo haday mashaariic tahay haday amni tahay haday dagaal qaadayso haday siyaasad tahay xitaa doorashada Soomaaliya sida loo qabanayo halka ayaa lagu soo go'aamiyaa waxa madaxdu inta media la soo istaagaan ay noo sheegayaan wallahi oo billaahi oo tallaahi wax jira maahan wadan kasta oo dagaal galay ama burbur galay ayaa qaabka loola macaamilaa wadamada lagu la macaamilo waqti xaadirkan waxa kamid ah Syria kamid ah Libya kamid ah waxa kamid oo kale Mali ba kamid ah oo ugu dambeyntii wadanka Mali madaxdoodu ay ceyrisay oo ay dhaheen chapter 7 kiina la dooni mayno dadkiina la dooni mayno wadanka waa inaad 24 saac uga baxdaan waxaad soo xasuusidaan madaxweynihii dhalinyarada ahay ee wadankiisa ayaan dhaxdaas ka ceyrinayay sidaas oo kale isagoo ugu ceyriyay wadan kasta oo dagaal galay oo burbur ka soo laabanaya ayay dadkaas u kontroolaan kulligood mushaarka xaradaas ayay ka qaataan ama mushaarka dadka la siinayo xarada ayaa laga soo baastagarayaa baarlamaanka kuwa maamul goboleedyada wasiirada maamul goboleedyada madaxweynayaasha maamul goboleedyada kulligood adiga hadda dad qurba joogtid sida markaad ceyr qaadanaysid oo kale ay koontadaada lacagtaas ugu soo dhacay ayaa xarada xalana lacagta laga soo diro koontadooda ugu soo dhacda dawladdan ka horeysay ayaa isku dayday inay amar diido ku sameeydo tiimka xarada xalana jooga laakiin way ka awood bateen markii dambe waxayna gaartay heer ay ku soo kiciyaan nimankii siyaasiyiinta ee magaalada Muqdisho joogay ayaga ugu dambeyntii baraka mala gaartay oo badbaado qaran iyo dawlad xilku ka dhacay oo xilkii kororsatay oo magaalada Muqdisho isbaara isku dhiganaysa ugu dambeyntii ay gaartay halka qodob ee dawladii markaa jirtay iyo qolada xalana joogtay isku qabteen waxay ahayd doorashada aynu qabanayno waxaynu ku dhex qabanaynaa magaalada Muqdisho iyo waxaad ku dhex qabanaysaan teendhada xalanaad ku dhex qabanaysaan tiimkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay taagnaayeen anagu doorashada aanu qabanayno dad Soomaaliyeed aan u qabanaynaa
qaabka ay u dhacaan adunkuna ogaatiin muhiim maahan ayaguna waxay taagnaayeen doorashada aad qabanaysaan iyo lacagta aad ku qabanaysaan iyo qaabka aad u qabanaysaan waa inay annagana soo marto ayaga toodii ayaana awood badatay isjiijiid dheer dagaal dheer kadib dadka Soomaaliyeed oo dhan marqaati ka ahaayeen doorashadii waxa la aaday xaradii xalana la aaday dadkuna waxay marqaati ka ahaayeen in madaxdii marka lagu diraayo dawladaasu ay ku andacoonayeen hadii aynu rabno dawladdan madaxdeeda inaan la hadalno waa in xalana loo laabto ayaa madaxda qaar ku andacoonayeen ayaan Soomaaliga hay daawanaya maalin kasta qabiil baad hurinaysaa maalin kasta qabiil baad ka sheekeynaysaa maalin kasta laandheera aad leedahay haddii aad laandheera tahay oo laandheeranimadaada run sheegay oo aad laandheera la tahay intaad xarada xalana tagtid kuwa jooga waxaad tiraahdaa cashuurta wadanka ayaan ka qaaday haddaad walaalka Soomaaliyeed u awood leedahay oo midka Soomaaliga maskiinka ka soo horbaxo aad ku leedahay laandheerana hay aduna laangaaba tahay wallahi laangaab kala sheegay waa adiga ninka wadankiisa lagu maamulayo ninka waxa uu doonay aan wadankiisa ka samaysan karin ninka ciidankiisa loo biilayo ninka madaxdiisa loo biilayo ninka asaga garaam la siinayo beerihi falala ninka adduunka baryaya oo asagoo waxba soo saar karin ninka xitaa cirbad aan warshad soo saarta aan lahayn ilaa gaabka waa adiga Soomaaliga ee ku faanaya inaad laandheera tahay Soomaaliya joogtid meesha aad waqtigan taagantood iga dhageysanaysid wallahi hadii la qodo shidaal baa laga helayaa hadii meesha taagantaa laga waayo 5 tilaabo ku jira ugu yaraan waa ka baahan tahay waxa laga yaabaa caawinaada dabshidan shidaalkaas muxuu ku tarayaa hadaad duurka gashid macdan baa ceegaagta maxay macdanta ku taraysaa war wax dhulkanagu waa naga badan yahay dadkanagana waa ku filan yahay anagu inaynu is aaminaa loo baahan yahay waliba anigu dadka madaxda noo ah ee waaweynka ooldiga ayaan eersanayaa dad dhalinyaro baa loo baahan yahay wadankan oo maskaxdoodu fresh tahay oo qabiil nadiif ka tahay oo aan dagaal iyo qurun iyo qashin aysan maskaxdooda ku jirin ee Soomaalinimo aaminsan baa loo baahan yahay aad iyo aad baad mahadsantiin muuqaalkayga bilaa ula dhamaan hadaa daawanaysay walaalo badan oo Soomaaliyeed gaarsii si ay ugu baraarugaan chapter 7 waxa uu yahay dalkoodu siyaasadda lagu xukumo say u ogaadaan aad iyo aad baad mahadsantiin Soomaalinimada ha waarto ilaahay dawlad caadil ahna siiyo baganaga burcada Allah isku mariyo dal waa haysanaahe dad wanaagsan Allah naga dhigo dawlad awood la ilaahay hana siiyo waxaan ka codsan lahaa adiguna inaad intaas in la eego kale gacmaha intaad kor u taagtay aad tiraahdid laga yaabee in carabkaadu karaamaysan yahay qof naga mid kulligan hadaynu duceyno mid naga mid carabkiisa ayaa karaamaysan hadii aadan awoodina qaybtoos oo commentiga aamin noogu soo qor laga yaabee inaad ilaahay ajiibe